celinayaa beesha Tolomoge oo salaadiintooda ku idilihiin goobta ee gogosha nabadeed fidiyey iyo beesha caawinahan ee goobta soo adkibtay walaaladood ee kulanka annagii si fiican buu maanta u qabsoomay waxaan baaq nabadeed u jeedinaynaa walaalahanno reer Waafate iyo Aadan Cabdalle inay nabadda aan maartay lagu baaqahayo ay qaataan oy ku walaaloobaan walaalnimo dadkii dhintayna waan u tacsiyeynaynaa samir iyo iimaan Allah inaga siiyo wax soo noqon haya ma aha halkaasi intaas dhimatayna waa sidaa nin kaloo nool oo dambana yaan la dilin insha Allahu tacaala nabadda ha laga wada shaqeeyo waxaa kaloo baaq u dirahayaa anoo ka faa'iideysanaya fursadaydan walaalahanno Ismaaciil Jumcalle iyo Ibraahim iyagana maartay dhibka dhex yaalla in nabad lagu soo dabaalo walaalnimo la raadiyo laga shaqeeyo nabadda dil dambe uusan dhicin dilka foosha xun ee dhacayna la cambaareeyo isagaas in aan cambaareyno oo maartay wax aan lagu farxin uu ahaa hadda kadibna walaalnimo la qaato dadka dhintayna Allah wada naxariisto Allah wada naxariisto intay ka baxdayna sabri iimaan Allah ka siiyo sabri iimaan Allah ka siiyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatiha bismillahir rahmanir rahim dhammaan guddiga salaamay salaanta bacdi anagoo ah madaxda dhaqanka dowladda Soomaalida gaar ahaan gobolada Guday iyo Afdheer sida kala loo dhigana gobolada Guday Shabeelle iyo Afdheer si kala loo dhigana Bahalo Muuse iyo Tolomoge Muuse iyo Shariifka oo meesha jooga asagana waxaan baaq nabadeed u diraynaa cid kasta ay khusayso gaar ahaan walaaladano Waafate Muumin iyo Aadan Cabdalle dhibaatadii yarayd ee meesha ka dhacday dhibaatadii foosha xumayd ee meesha ka dhacday inaan lagu kala tegaynin nabad ka dambayn doonto insha Allah saan ilaahay ka rajaynin nabad baa ka dambayn doonta wax walbana way dhacaan waa la isdili jiray waa la heshiin jiray lama kala maarmi doono ilaahay baa maaragtay innaga isuran meel loo kala socdo ma jirto insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa wixii dhacay inaan wax dambe ka daba dhicin nabadna ay ka dambayn doonto yaa la dooginayaa waa la doogayaa la dacaroon ruux walba oo aayar gacmahaaga cesho arrintaasi waxa weeye baaqa nabadeed baa idin dirnaa walaalayaalow sidaa rag ugaaskii ugu horreeyey uu ku hadlay waxaan baaq idinku diraynaa ama halkan aan fariin ka soo jeedinaynaa in wixii dhacay uusan wax dambe ka daba dhicin oo uga gudubno wax waa dhici jiray inaynu uga gudubno maxaa xal ah insha Allah waynoo qabsoomi doontaa midda kale waxaan fariin u diraynaa oo weliba aan cambaaraynaynaa falalka foosha xun ee iyagu ka socda gobolka Wardheer oo soo noqnoqday gaar ahaan labada qoys ee walaalada ah Ismaaciil Jumcalle iyo Ibraahim oo muddo soo noqonaysay walaalayaalow arrinkan arrin qurux badan maaha waxaan idinku baaqaynaa inaad fariintanada wax ku qaadataan oo naga aqbashaan aakhare waa jirtaa nin walba camal inuu la tagaa la rabaa adduunkuna sidan quruxna ma aha waxaan idinka codsanaynaa inaad walaalnimadiinni soo celisaan ka gudubno dhibaatada jirta ilaahiga khaaliqaana waxaa idinka baryaynaa nabad waarta inuu ilaahay idin siiyo waana idin iman doonaa insha Allah aad baa u mahadsantihiin sidaas oo kale aan leeyahay anagu waasbadaa aan hormarinaya mid haddaan u joogno insha Allah kuli ilaahay baan baryaynaa ilaahayna wuu naga aqbali waxaan ka gaaraynaa nabadgelyo baan ku jirnaa kama saaxanayno har kama harsanayno
هذه كم ساعة إنه إلى سنة عرفنا عين وقطه سبتها سوينا هدي أنا إدريش عبي أنا وكذا يجوا في الله يجوا يجي ولأن والله هذا والله هذينا صار كون النص عوني إلى أن كتل قارنه ما كتمنا وإن لما تنوي والله يجوا واسخبنا إن شاء الله قريب وإن الله قادم إلهي ما نوصل خير أنا أنت عبنا ما قرينا إن شاء الله لأن عنك الله يبدأ مني ما هو يقول وإنه معنا هذه أسواق على ميتك